laba doorasho laba khiyaar oo quraynu haysana mid saddexaad ma jiro laba khiyaar u baayala laba doorasho options yaadaysa yani waa laba uun inaad waxaaga ilaashanayso sidii aad u ilaashan lahaydna inaad caqligeedii xooggeedii tamarteedii keenaysid dheeraadkana markaad raadsanayso kaas waa optionka kale waa inaad iska noqoto oo wixii awal baad ka soo qaxday dee challenge buu ahaaye kaa aad waajahdo malakaasaa ka fudud kane waa labada mid saddexaad ma jiro ka saddexaad dee waa inaad dhimataa saddexaad waa inaad milantaa waa inaad diin iyo dhaqan iyo afba weydaa kaasi isagoo option maaha markaa qofka bini aadamkii markuu xisaabtamayo kaasi ma aha xisaabtan ee waxa xisaabtanku uu yahay labada challenge keebaad u diyaartay inaad waajahdo noloshu alxayaa kullahaana waa challenges nolosha gebigeedu waa caqabaad nolosha fadhiga cid ku dherigtaa waa yartay noloshu waa dadaal iyo caqabad la rabaa in laga tallaabo ee keebaad diyaar u tahay ma inaad kan ka tallawdo caqabadiisa waa waxaagana inaad haysato waxna ku darsatid se waxaad diyaar u tahay waralkan waxba ku hayn kari maysida inaad xaggaaga iska qabato dee taa lafteedu ma fududee challenges baa yaallay wax la cunaa la raadinaya dhaqaala la raadinaya nabad baa la raadinaya challenge kale xaggaana yaalla inaad kaa waajahdo labada challenge ama labada caqabadood keebaad diyaar u tahay inaad waajahdo weeyaan quraanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa tajaaribtii ummadii hore iyo wixii ku dhacay iyo say qaar diintooda u haysteen iyo qaar siday u milmeen waxa kaloo quraanka ilaahay inoogu tilmaamayaa qurbadii koowaad ee muslimiintu siday uga baxeen marka tajribo ka horreysay islaamkan inuu hadda haysanno oo taariikhiya quraanka way ku taallaa waxa kaloo quraanka ku yaala tajribadii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii oo dee iyaba dhul muslim may joogin yani nabigu markuu soo baxay maka dee gaalaa deganayd madiinana gaalaa deganayd carabina gaalay ahayd midhmidh baa dadka uu islaamay dhowrkaa qof oo uu islaamiya isagu waxay ahaayeen mujtamac yaroo koobanoo ku dhex nool mujtamac ka gedisan oo diin ka gedisan haysta afka way wadaagayeen laakiin dhaqan iyo diin ka gedisan oo jaahiliya ah haysta marka lababa waxaynu u baahanay inaynu wax ka baranno taariikhdu quraanku ka warramayee ku saabsan dadkii mashaakilkaasi qabsadee ka soo baxay ama ku dhacay inaynu si fiican u daraasayno saxaabadii nebiga iyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam gurbati alislaami aluulaa siday uga baxeen waayo التمسك بالدين والاعتزاز به في وقت القربة الرفض معها ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حكت المامية صحيح الجامع الصغير عن أنس بن مالك حديث كصاروري يأتي على الناس الزمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر ماشي إنه challenge يبو النبي قلت المامية ضدك وقت باكو إيمان دونا قفكو الدين تيسا إنه هايستو كل جنادو أي لم يتنين دحول هايستا يعني دحول طبعا ينطقبطا وchallenge هذاك وقت أي سيدة الدين تكون نقون دونتا إيمان دونتا أما حديث ابن مسعود ورينا إن من ورائكم زمان الصبر اللي تمسك فيه أجر 50 شهداء منكم maalmaad dambeeya qofku diintiisa inuu ku dheganaado uu la mid yahay konton idinka ka mid ah nabigu tilmaamay sida awgeed quraanka ilaahay wuxuu ka warramay niman reer banu israa'iil la yiraahdo yahuud reer banu israa'iil waa mujtamacyada ugu badan ee ilaahay kitaabkiisa uu taariikhdooda ka warramay taariikhda reer banu israa'iil xumo iyo samaba way leedahay reer banu israa'iil nabiya ka dhashay نبي بدنا قرآن كم تلمامي ده إسرائيل ونبي يعقوب إن كيسي يوم حياة نبي يوسف ولا الذي وهنا علماء بدلي النبي مركز دمان نقدين أنبياء بدن نبي سليمان نبي هود معها سليمان أبيه داود نبي الله موسى أنبياء بدن الرب إسرائيل ودت صالحين قرآن كورمية بل إلهي وحكوت المامية إني كمد وجعلنا منهم أئمة
yahduuna biamrina lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun. reer banu israa'iil waxaa ka mid ah a'imma, dad lagu daydo oo diinta ilaahay ku dhegay markii ay ku sabreen inay waxooda xejistaan, yaqiintooduna ay rasmi ahayd. yacni laba midnama gelin, waxaan ay diinta haysteenna way rumaysanaayeen, way yaqiinsanaayeen. second to that, obstacleski ka hor yimid, dhibaatadii ka hor timina umay liicin, umay dabcin. labadaas shay markay isla heleen baa ilaahay leeyahy ayay waxay u noqdeen bini aadamka tusaale. kuwaasi reer banu israa'iil bay ka mid ahay. waxaa kaloo ilaahay qur-aanka inooga warramaya gruub kale inaynu reer banu israa'iil ka mid yihi. bal gruubka kale aan eegna waxa ilaahay ku sifeeyey. marka hore ilahay wuxuu yidhi waqatacnaahum fi lardi umama. reer banu israa'iil waa googoynay baa ilahay yidhi dhulkaa lagu faafiyey. minhum asaalixuuna wa minhum duuna dalik. kuwa suuban iyo kuwa xunba way lahaayeen baa ilaahay leeyahy. wabalownahum bilxasanaati wasayi'aati lacallahum yarjicuun. dhibaatooyin iyo wanaagba waa ku itixaamnay bal inay soo noqdaan. ilaahay wuxuu sheegay markaa kuwii kaga dambeeyey waa kuwii lumay. fakhalafa min bacdihim khalfun warithuu lkitaaba ya'khuduuna carada hada aladna wayaquuluuna sayukfaru lana wain yaatihim caradun mithluhu ya'khuduuh alam yu'khad calayhim miithaaqu lkitaabi an laa yaquluu cala allahi ila alxaq wadarasuu ma fiih waddaaru alaakhiratu khayru liladiina yattaquuna afalaa tacqiluun. ilahay wuxuu yihi kuwa gadaashood waxaa maray qoladan maxaa u calaamada? marka hore kitaabka way dhaxleen. dadkii challengeska soo maray adkaa maaha, waa dad dhaxlay, waa sideenoo kale. inagu islaamnimana umaynan dhiman, cidna meel kamaynaan xoraysan. inagoo dhul muslim deganoo dad muslimiina la nool unbaynu islaamnimada dhaxallay. weliba aabbiyi hooyadii buu ka dhaxlay, bulshadii uu la joogay buu ka dhaxlay, way dhaxleen. kuwan ilaahay wuxuu ku tilmaamaya inay yihiin warithu hada alkitaab. asalkana waxaa la yaqaana qofka bini aadamkaah wuxuu dhididkiisa iyo dheecaankiisa ku bixiyo wuu uga laxa jeclo badan yahay waxa si fudud soo gala. xataa dhaqaalaha caadiga ah waxaad adigu ku dhididay si fudud kuma baxaan. laakiin xoolahaad aabbaha ka dhaxashay inta badan sayrsayriska dhallinyarada wixii ay aabbahood ka dhaxleen inta badan waa lagu tuntaa, waa la baabi'iyaa. laakiin waxaad adigu dhididkaaga ku keentay waxaa laga yaabaa inaad yamxeeriso, ilaaliso oo ku xisaabtantid inaanu hore kaga bixin. caqiidadeena iyo mabaadideena iyo akhlaaqdeena iyo dhaqankeena dhammaantood aan xejisanno. taa macnaheedana lagama fahmayo cunfi iyo mashaakil kale aan abuura lagama fahmayo. waxaa laga fahmayaa inaynu caqiidada islaamiga iyo dhaqanka islaamiga inaga dul muuqdaan. qadiyadda kale aan tilmaamaya waxa weeyaan waa inaynu kala garannaa maxaan qaadanaynaa, maxaan ka tegaynaa. waa inaan kala garannaa. miyaynu maydhmaynaa, waynu baaba'aynaa, dawabaan, mise indimaaj? halkan markaad joogtaan erayaa laydiin sharxa la ydhahda maxay? assimilation iyo integration. dadka baadh bay yidhahdaan giitobay galaan, qaarna way assimilate gareeyaan, qaarna waa u dhexeeyaanoo waxay galaan maxay? integration. giitooga waa intaad meel isku qafilso xero yareeda wax walba may tidhaahdo. taa dee adigunbay kaa suurtagal tae yararkaaga iyo islaamaaga waxaaga kan kama suurtagalaha. in haddaad dee meel isku qafili karaysana kaagii baa kuu roonaa inaad isku qafisho, waanad xaggan u soo bixin. ku darsankuna dee waa adoo dhintay oo iska milanku. waxaa soo hadhay waxay iyaguna inugu wacdiyaan inanaan u baahanay inaynu fahamno la ydhahda integration. meel walba waxaa la leeyahy integration. politicianskiiyo nimanka siyaasiyiintii bulsho kastoo homogeneous way ka fududay bulshada kala gedisan. tacadudku iyo noociyaadka kala gedisan waxyaabaha qaarkood way ku fiican yihin bay dhahan, laakiin siyaasiga uma fiicna. siyaasigu wuxuu jecel yahay dad isu aragti oo isku dhan u jeedo dee dhan qura wada kaxeeyo, laakiin dad geesale waa ku yara dhib badan tahay. marka iyagu integrationka ay sheegaan inta badan saasuu u badan yihin. laakiin adigu inaad integraysto waa sax, laakiin laba weedhood waa inaanu kala garannaa. ma alfarq bayna altabaciya waalistifaada, bayna altaqliid waalcilm? maxaa u dhexeeya inaynu dameeridhaan raacday noqonno, ku dayanno oo wax walba ka qaadanno,
iyo inaynu wax ka faa'iidno aqoonna ka kororsanno wax weyn baa u dhexeeya wixii wax anfacaya yaan diintaada ka hor imanaynin inaynu ka qaadanno weeyaan laakiin masaa'ilka caqaa'ida iyo diinta iyo akhlaaqiyaadkeena iyo cibaadaadkeena waxayna inaynu ka tanaasulna maaha marka waa inaynu kala garannaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa inay dhici doonto latattabicunna sanana aw sunana man qablakum shibran bishibrin wa diraacan bidiraac waxaad raaci doontaan buu nebigu yidhi waddooyinkii dadkii idinka horreeyay taaka iyo dhudhudhudhun saxaabadii dee mintidka ahayd ee wax iska soo dhicisay ee dhulka xoraysatay ee caynkana buu warkaa ku leeyay markaasuu nebigu wuxuu yidhi weliba xataa low dakhaluu juxra dabbin latabictumuuh aw la dakhaltumuuh xataa hadday god mase cagalay hadday galaan waa ka dabagelaysaan buu nebigu yidhi markaasa waxay dhahay yaa rasuula allahi alyahuuda wanasaara ma yahuud ya nasaara qaala faman yaa kale buu nebigu yidhi yaa kale maalin kaleo haddana nebigu wuxuu yidhi xadiidkan oo kale sunana man qablikum baa raaci doontaan markaase waxay dhahay alruuma waalfurs ma romaniska iyo bershiyanka yaa kale buu nebigu ku yidhi ibnu xajar raxmatullaahi caleyh markuu labada xadiis ba fasiraya wuxuu leeyahay wixii siyaasad dawliya iyo baabkaa ku saabsanna waddada romaniska iyo bershiyanka ayaa raaci doontaan hadday noqoto bidca iyo diin abuurka iyo waxaan kalena waxaad raacaysaan maxay alyahuuda wanasaara idan asalku muxuu xadiidkani inoo tilmaamaya wuxuu inoo tilmaamaya qofka muslimka ah wuxuu kaga soocan yahay inuu garto yahuudiya nasaara muxuu kaga soocan yahay romanis iyo bershiyan muxuu kaga soocan yahay mabaadi iyo caqaa'id iyo diin baad kaga soocan tahay maxaa wada leediin tajaarib alinsaaniya wixii ka tirsan bini aadamku wuxuu experience-ku ku dhaxlay aqoontan la sheegayo dhaminteeda badani waa maxay waa tajaaribtii bini aadamku uu kala dhaxlay idan waxaynu qaadanayno iyo waxaynu ka tegayno inaynu garanno ilaahay markuu quraan ka warramayo anbiya ilaahay ka warramay fi suurati maryam baan rajaynaya anbiya ilaahay ka warramay nabi hebel marka anbiyada alla ka warramay ayaa ilaahay isku soo duuduuba wuxuu yidhi ulaa'ika aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina min duriyati aadama wa miman xamalna maca nuux ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا كواسي با إلهي وكوي إلهي النعمي ذرية نبي آدم يكوي نبي نوح يو نبي إبراهيم يا نبي إسرائيل وحيد دلين أنت أنو هنون نبي إلهي لي إلهي يتكي سبرك مقلان وخضوا عنا وسجودا لكن جروب كان نبي هذا كبحسن با إلهي طلبا بهذا فخلف من بعدهم خلف جروب بقوة ضبط مريبة إلى هيري وهو ضدودي كوعد محي سماية أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلغون غيا صلاة يضيعين شهوات نفسي وحي ربطي يسكر راعين كواس النار تقلي ينبالغوت المام محانك وقدون لنا مركا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا waxaanu dan leenoo leenahay waa inaynu garannaa waxaynu haysanayno waa inaynu garannaa tajaaribtii hore ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa duul wixii la rabay inay ka tagaan mooye wixii la rabay inay xejistaan ka dhacay oo maxaa ka mid ah maalan ilaahay wuxuu tilmaamaya watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu ashaytaanu fakana min alghaawiin waxaad dadka ku akhridaa baa ilaahay yidhi warkii kii aanu aayaadka siinay mid diin garanayuu ahaa maxaa ku dhacay fansalakh waa ka siibmay baa ilaahay yidhi dabeetana shaydaan iyo gruubkaasuu ku biiray kaa ilaahay markuu tilmaamay waxaa la yidhi famathaluhu ilaahay wuxuu markuu soo tilmaamay haddii ilaahay doonayo qofkani qof sugan buu noqon lahaa waa kaa la soo sheegay waxaa la yidhi famathaluhu kamathali lkalbi in taxmil calayhi yalhath aw tatruku yalhad kaa tusaalihiisu eygu buu la mid yahay baa la yidhi eyga haddii la eryana carabka waa laalaadiyaa hadduu iska fadhiyana carabka waa laalaadiyaa xoolaa kale sidaa maaha xoolaa kale markay kulayl iyo waxaa dareemaan bay harariyoodaan markay se nabad qabaan dee ma harariyoodaan eygu laakiin mar kastaba isagoo carab laala kan waxa weeyaan hadday diin loo sheegay haddaan loo sheegin waa isku mid ilaan marka horeba diin buu hayo uu ka baxay waa kitaab xoor
dee wadaad quri kitaab xoor maaha haddaynu waddadaa wada cararo dadku waa wada kitaab xoor buu noqonaya ninba intuu hayuunbuu xoorayahay nin salaad xoora iyo nin inka durugsan xooraba ninba intuu hayuu xooraya waxaa kaloo ilaahay qur-aanka inoogu sheegaya shaytaanko qura maaha dad mutarabisiinana inay waddada fadhiyaan dad ugaadhsi taga oo jecel inay naga saaraan ilaahay wuxuu leeyahy wadda kathiirun min ahli lkitaabi لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق إن بدنوا أهل الكتاب كمدي وحي تشعلين باي لهيدين الدين تاني دين كبحيان إيمان كدبدين قال لما يدين عليان ولبا يقعوا حق وعدي هاي مري وحقرتين حاسد نما درادت باي لهيدي دي كواسنا ينوى جوغان مركا وحويان وضعي يو أدك شيطانو ميشي جوغا qolo kaloo ku ugaadhsanayso meesha joogta iyo adigoo labaclabacla ah hadday is heshaan dee arrinku waa khatar marka waa inaynu kala garannaa uun maxaynu kororsanaynaa maxaynu aan dib ugu soo noqdo markaasi waxaan ka bilaabayaa halkan waynu nimiye su-aasha ah si fiican qof waliba uga jawaabo ma waxaagii adigoo haysta inaad wax ku kororsataa baad rabtay mise inaad waxaagii wax ku bedelato ninkii rabay wixiisii inuu wax ku kororsadaa waxaad haysata diin baa ugu weyneed ee diintii waa inaad xajisaa markaasaynu ka wada hadlaynaa adduun iyo wixii aynu kororsanayno taa haddii la waayo waa waxaygii baan wax ku bedelanayaa adna caydh iyo shaqaa lagu siin ee diinta iyo carruurtana waa lagaala tegi adna caydh iyo shaqaa lagu siin oo nabadgelyo iyo waxaad ku noolaatay oo kale laakiin nabaddu waa maxay nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu inoo tilmaamayey haddii afkaartaad rumaysantay iyo bulshadu waxay rumaysayiin markay iswaafaqaan in nabad helayso wuxuu nabigu yidhi man asbaxa minkum aaminan fii sirbi mucaafan fii jasadi cindahu quutu yawmi fakaannamaa xiizat lahu dunya bixadafiiriha ninka waa bariista isagoo nabad qaba fii sirbi ay fii qawmi aw fii mujtamaci aw fii ahli gurigiisi iyo reerkiisi iyo dadkiisi kuwaa bariista yacni bulshadii ay isku waxa aaminsanaayeen ninka kuwaa bariista isagoo nabad qaba kaasoo ah mucaafan fii jasadi jidh ahaanna caafimaad qaba cindahu quutu yawmi maantaa wuxuu afka geliyana haystaa kaa adduunkuba wuu ku dhan yahay buu nabigu tilmaamaya yani kaasi wuxuu haystaa alamni nafsi walamni alcaqadi walamni alfikri walamni sixi waxay sheegaan oo dhan ay ka warramaan ayaa ku soo ururay laakiin ninka waa barista fii gayri sirbi gruubkiisi cid aan ahayn ku waa barista ee mabaadi iyo afkaar iyo caqaa'id kala gedisan la iskala hor yimaado kaasi meel khatar u jooga marka su-aashu waxay tahay haddaad rabtaan inaad waxaa haysateen wax ku bedelataanna dee waa mas'ala haddaad rabtaan wixii ay haysateen inaad haysataana wax kororsataanna waxaa haysateen sidaa u haysan lahaydeen caqligeeda wayna keentaan oo kow waa midnimo inay isku xidhantiin laba waa juhdi iyo dhaqaale iyo xoog iyo wakhti dheeraada soomaaliya markaad joogtay intaad diinta ku bixin jirtay hadda waa inaad labalaabkeed iyo saddex laabkeed ku bixisaa hadday dhaqaalo tahay hadday wakhti tahay iyo hadday effort tahayba juhdi tahay waa inaad ku bixisaa waa inaynu aqbalnaa inaynu invest garaysanno waxaynu aaminsanayn si uu u dhowrsoomi karo waxaa laga yaabaa in laga cawdo macallimiinta masaajidka wax dhigtaa oo dee wadcigaba lama socdaan ama si fiican uma garanayaan kani waa caynkan you should be haddaad rabto taynu rabno macallinka dunida ugu fiican waa keeni kartaan magaaladiina tan ama masar ka keena ama soomaaliya ka keena ama meesha doontaan ka keeno waa keeni kartaan qof well trained ah experienced ah wax garanaya oo aad ilmihiina u dhibtaan waad keeni kartaan mididinka waxayda bara laakiin maxay u baahan tahay dee inaad invest garaysataan inaad wakhti ku bixisaan haddaad tidhaahdo wallaahi dee maalintiina waan soo shaqeeya goormaan wax dhigtaa dee waxaad joogantuun
Soomaalidu doqon bay sheegaan yidhi war maxaad u cadayan weyday baa la yidho maalintiina geelaan raaca buu yidhi habeenkiina waan seexdaa goormaan cadayda anigaas wuxuu ka cawday inaanu waqti u helaynin cadayga inaanu waqti u helaynin wuxuu yidhi maalintiina geelaan raaca deeteena waa caynka haddaad tiraada maalintiina geelaan raaca habeenkiina waan seexdaa goormaan diin bartaa dee diin la-aan baa ku leh wax iskala maaha idan haddaynu halkan rabno inaynu joogno diinna haysanno ama dhaqan haysanno ama afkeenna haysanno waa inaynu la nimaadno inaynu invest garayno wixeenna sidii aynu u haysan lahayn oo haddaynu caqli ku invest garayno iyo haddaynu juhd iyo time ku invest garayno haddaynu lacag ku invest garaynaba waa inaynu tijaabinaa marka inteennina waa haysan karnaa in shaa allahu ziyaadadana waa raadcayn karnaa wasala allahu calaa muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam